kusoo dhawaada kooraskani javascript kooraska waxaa ku baran doontaa javascript bilow ilaa dhammaad kooraskan waxa uu la socdaa kooraskii hore ee HTML and CSS oo ah inaad baratid qaabka loo dhiso websiteska kooraskan waa kooraskii markaas labaad ee markaasi web development-ga waxaan ku qaadanaynaa javascript waa programming language loogu talagalay in lagu dhiso markaa websiteska marka qofka markuu rabo inuu barto web development wuxuu u baran doonaa HTML CSS iyo JavaScript oo noqon doona front end doorasho waxaa ku baran doontaa JavaScript programming language oo dhammaystiran waxaana markaa baran doontaa ilaa iyo 5 qaybood oo 5 chapter ayaa markaa u kala saaran doorashada waxaana ku qaadan doontaa introduction to JavaScript waxaa qaadan doontaa DOM manipulation waxaa qaadan doontaa JavaScript basics waxaa qaadan doontaa JavaScript intermediate project sidoo kale waxaa qaadan doontaa JavaScript advanced waxaa ku dhisi doonaa markii 8 project sideeda projectadu ugu horeeyo ee qaybta basic projectska waxaa ugu horeeya project aan laga qaanayo body mass images wuxuu ku xisaabinayaa qofka inuu buta yahay inuu qaliir yahay iyo waxyaalahaas ayuu sheegi doonaa waxaa markaas ku implement gareynay in markaa uu shaqeynayo interkiida sidoo kale in wixii markaa la tirtiri jaro sidoo kale waxaa qaadan doontaa qaybta basicska calculatorkan oo markaasi aad ku xisaabin doontid xisaabaad kala duwan markaasi waxaa qaadan doontaa calculatorkii oo dhammaystiran sidoo kale calculatorka wuxuu leeyahay functionality aad u badan oo aad ujeedaan inuu markaasi wax walba kuu sameynayo waxaa qaadan doontaa calculatorkan oo markaasi ku baran doontid waxyaalo aad iyo aad u badan sidoo kale waxaa qaadan doontaa qaybta basicska digital cloud oo ah saacad shaqeynaysa adoo markaa isticmaali doono HTML CSS iyo JavaScript sidoo kale qaybta basicska waxaa ku qaadan doontaa form validationkan oo ah in la fiiriyo qofka markuu isdiiwaangelinayo yani si sax miyuu isku diiwaangeliyey mise si qaldan buu isu diiwaangeliyey yani magaciisa ma qoray gmailkiisa ma qoray passwordka si sax ma qoray password ilaa iyo 8 camal ma qoray password confirm passwordka iyo passwordka ma isleeyihiin waxyaalahaas oo dhan ayuu markaas xaqiijinayaa marka waxaan loo yaqaanaa form validation sidoo kale qaybta basicska waxaan kusoo dhowdhaweynaynaa projectyan oo ah to-do list application oo noo ogolaanaya inaan markaa to-do list aad sameynaysono tusaale waxaa dhihi kartaa reside holy quran kadib markaas waxaa sameynaysaa ad kadib wuxuu ku ogolaanaya inaad dhahid jack inaad saartid oo ah inaad akhrisay ama inaad delete aad dhahid labadaba wuxuu ogolaanaya sidoo kale haddii aad qotid to-do list oo aad dhahid reside holy quran haddii aad dhahid kadibna oo aad refresh dhahid pagekaada ama aad xirtid makaa bixi doono refresh haddii aad dhahid ama aad xirtid makaa bixi doono sidoo kale interkiida uu shaqeynayaa haddii aad dhahid read bookis oo kale kadibna inter aad dhahid waa uu kuu samaysmaya marka waxaan sameynaynaa insha allah to-do list application oo noqon doona project uu dambeeya qaybta JavaScript basicska okay waxaan usoo gudbeynaa qaybta intermediate waxaan xoog ku saareynaa inaan waxyaalo badan aan ku fahanno JavaScript gaar ahaan markii aan qaadano DOM manipulationka waxaa doonaynaa inaan wax badan aan fahanno kadib waxaan qaadanaynaa wax laga yaqaano touches to speech converter touches to speech converterka wuxuu noo sameynaa wuxuu bedeli doonaa qoraal ayuu bedeli doonaa qoraalkaas oo ah qoraal caadi ah wuxuu bedeli doonaa cod ayuu bedeli doonaa soo marka meeshaan waxaad ku qoraysaa qoraal dan marka wuxuu bedeli doonaa cod ayuu bedeli doonaa okay haddii marka qoraalkan aan soo dhigno kadibna aadano listen Gel Bashir Academy is a premier e-learning platform founded in 2021 by Gel Bashir, the leading authority in online business and technology education in Somalia. With the mission to provide high-quality, accessible education in the Somali language, the Academy has grown to become a beacon of knowledge and skills development for the Somali-speaking community. okay saa u jeedid codkii qoraalkii aan meesha ku qoray ayuu wuxuu u bedeli doonaa cod ayuu bedeli doonaa sidoo kale waxaa bedeli karaa codod kala duwana meeshaan iisoo bixi kara saa u jeeda codod aad iyo aad u badan ayaa markaa u bedeli karaa waxaa bedeli karaa UK female waxaa bedeli karaa codod kala duwan isticmaali kara marka waxaa ujeedaan codod badan aa heli kartaa soo hadhow marka project walba u isticmaalaysaa project aad doonaysa insha allah marka waxaa qaadanaynaa marka ku xigta clone oo markaasi social media application ah social media application linkeed camal weeyaan marka waxaa sameynaynaa bilow ilaa dhammaad HTML CSS iyo JavaScript saddexdaba waa sameynaynaa marka saa ujeedaan inta marka meesha posterska dhaqaaqaya labadan kale way istaagsan yihiin saa ujeedaan marka all of that waa sameyn doonaa insha allah sidoo kale meesha waxaa ujeedaa animation uu leeyahay animationka CSS waa sameynaynaa sidoo kale JavaScript uu shaqeynaya haddii aad ku dhufto meeshaan waxaa weeyaan waxaa iisoo bixi doona profilekan dan haddaaro hadaa mar laba ku dhufto oo qarsami doonaa si profile haddaaro waxaa arjaysaa profileka liisoo saari doonaa qaybtan oo ujeedaan
haddii aa u laabto qaybta home doona u laaban karaa sidoo kale responsive waaye responsive markaa kadhignana waxaa ku darnay javascript oo ujeedid meeshaan waxaa ku qoran show more micnaheeda tahay haddaad ku dhufto waxaa weeyaan wax baa lasoo weyneyn doonaa wuxuu isu bedelayaa qoraalka isbedelaya showles isu bedelay haddii aa markaa soo qorayo iyadana markaa wuu soo qorsami doonaa so waxaasoo dhan marka waxaan ku baranaynaa qaybta javascript so labadan project waxaa ugu talagalay qaybta marka intermediate oo waxyaalo badan aad ku fahmaysaan marka waxaan qaadanaynaa advanced oo waxaan baranaynaa APIs maxay yihiin waxyaalo badan aan baranaynaa oo topics advanced ah kadib marka waxaan ku dhisaynaa project yaan aan ujeedaan weather application oo markaas isticmaalana API-dii wuxuu yahay waan sharxi doonaa kadib project waa maxay waa weather application halka waxaad ku qoraysaa magaalada kadib waxaad dhehaysaa search kadib waxaa lagu raadin doonaa magaaladaasi kadib waxaa lagu soo bandhigi doonaa magaaladaasi iyo markaa temperature-keeda iyo weather-keeda lagu soo bandhigi doonaa sidoo kale muqdisho haddaad ku qortay iyadana waa lagu soo bandhigi doonaa weather-ka muqdisho marka sidoo kale waxaa lagu soo bandhigi karaa hargeysa haddii aad doonaysid so all of that marka waa helaysaa xogtooda dhan aa heli doontaa insha allah waxaa isticmaalaynaa marka API wuxuu yahay waa baranaynaa marka insha allah course waxaad ku qaadan doontaa 8 project oo kala duwan sidoo kale waxaad ku qaadan doontaa 10 pages iyo sidoo kale 10 advanced ah marka soo dhawaada course-keena JavaScript